xaaladda amni ee adduunka oo sii xumaanaysa iyo baqdinta laga qabo dagaal saddexaad oo dhaca ayaa si xawli ah u korortay. shayga ugu xun uguna saamaynta badan ee lagu dhex isticmaali karo dagaal saddexaadna waa hubka waxgumaada ee nuclear-ka. muuqaalkan waxaan ku eegaynaa sidee u shaqaysaa bombada nuclear-ku, sideena looga badbaadi karaa haddiiba la isticmaalo. marka horese aynu qiyaas ahaan u soo qaadanno bombooyinkii la isticmaalay dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. hubka nuclear-ka ee ilaa hadda aadanuhu u isticmaalay dagaal waa labadii bombe ee uu Maraykanku ku dhuftay magaalooyinka Jabaanka ee Hiroshima iyo Nagasaki 1945. waa labada bombe ee u bixiyeen cunuga yar iyo ninka buuran. wadarta dhimashada ay sababeen bombooyinkani waxay ahayd tiro u dhaxaysa 200 ilaa 400 oo kun oo isugu jira dadkii dhintay isla markii la tuuray bombada iyo kuwii gadaal uga dhintay shucaaca nuclear-ka oo shirkooda galay awgiis. saameyntooduna ma dhammaan oo muddo dheer waxaa dhalanayay caruur jiinkoodu bedelmay oo abuurkoodu wax ka khaldan yahay. labada bombo midda yar oo lagu magacaabo wiilka yar ama little boy waxay ka koobnayd 15,000 oo tan oo maadada TNT-ga ah. Fatmana waa ay ka sii weynayd oo waxay ka koobnayd 21,000 oo tan oo TNT ah. middan kale oo Ruushku tijaabo ahaan u tuuray intii uu socday dagaalkii qaboobaa laguna magacaabo Tsar waxay ka koobnayd 58 megatan oo TNT ah. Tsar waxay 3,000 oo jeer ka weynayd little boy-gii lagu dhuftay Hiroshima. culays ahaanna waxay u dhigantay 5 maroodi. badanaana bombooyinka nuclear-ka ee maanta dunida yaalla waa tan oo kale. haddana aynu eegno sida ay u shaqayso iyo waxyaalaha ay ka kooban tahay. bu'da hoose ee bombada waxay u eg tahay kubad weyn oo kale. kubaddan korkeeduna waxay ka samaysan tahay kimikaallo ka kooban waxyaalaha qarxa, dahaarna looga dhigay maadada beryllium-ka, oo ay ka sii hoosayso kubad kale oo maadada plutonium-ka ka samaysan, taasoo dhexroorkeedu noqon karo 10 ilaa 15 sentimitir. qaybta gadaalana waxaa kaga jira 3 dhuluuluba oo isku hoos jira. tan hore waxay ka samaysan tahay maadada uranium-ka, tan labaadna lithium-ka oo ay shidaal ahaan u isticmaasho bombadu, iyo midda saddexaad oo plutonium ah. bombada qaybteeda hore iyo qaybteeda dambena waxaa ka kala dhaca falgallada fission iyo fusion. qolofta sare oo ay ku wada jiraanna waxay dhahaan styrofoam. goorta la rabo in la tuuro waxaa bannaanka hoose looga xiraa diyaaradaha bambarka la dhaho ee waaweyn. diyaaradda bambarka ee tuuraysa bamkan waxaa laga dhigaa midabka caddaanka si loo yareeyo saamaynta shucaaca ee ka soo gaaraya bamka. marka la tuurana waxaa lagu xiraa baarashuud cabbaar sii wadaya inta ay ka fogaanayso diyaaraddii tuurtay. hubkan waa khatar, waana masiibada ugu weyn ee aadanuhu gacantooda ku sameeyeen dhulka korkiisana ku sugaysa si ay u arkaan waxa ay yeeli karto. maanta waxa oogada dhulka taalla in ka badan 12,000 oo bombooyinka nuclear-ka ah, mid walbana ay dhowr kun oo jeer ka weyn tahay tii Hiroshima lagu dhuftay, oo ay kala haystaan wadamada reer galbeedka ee Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinac ah, kuwa bariga ee Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo waqooyiga Kuuriya, iyo bariga dhexe oo Iiraan iyo Israa'iil ah. Maraykanka iyo Ruushka oo kaliya ayaa haysta 90% bombooyinka nuclear-ka ee adduunka yaalla. meelaha ay suurtagalka tahay inuu ka dhexdhaco dagaal nuclear ah waxaa ka mid ah Hindiya iyo Pakistan oo xuduud isku haysta, Iiraan iyo Israa'iil oo bariga dhexe ah, Ruushka iyo Maraykanka ama Maraykanka iyo Shiinaha ama Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya. xoguhu waxay sheegayaan haddii la isticmaalo nuclear-ka adduunka yaalla kala barkiis in ay burburayso ilbaxnimadii aadanuhu muddada dheer dhisayay, iyo in ay dhimanayaan 5 bilyan oo qof. waxyaalaha ugu waaweyn ee loo dhimanayana waa shucaaca halista ah oo ay soo daynayaan bombooyinku isla marka la tuuro. arrinka labaad ee dhimashada ugu badan keenayana waa gaajo iyo macluul la soo darsi doonta aadanaha, taasoo ay sabab u tahay qiica bombooyinka oo isku gadaami doona gibilka sare ee hawada, sababayana in ay qorraxdu si fiican u soo gaari weydo dhulka. natiijaduna waxay noqonaysaa inuu hoos u dhaco heerkulkii dhulka, in la galo jiilaal aan dhammaad lahayn, iyo in qabowga jira awgii ay dhirtu soo bixi weydo. tirada ugu badan ee dadka dhimanayana waxaa laynaya waa gaajo iyo cunto la'aan. xilligan hadda la joogo dagaalada bariga dhexe iyo kuwa Ruushka iyo Ukraine awgood waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo inuu dhaco dagaal weyne ku fida dunida oo dhan, aakhirkiina la isku isticmaalo bombooyinkan halista ah. taas waxay keentay in ay dad badan ka sii diyaar garoobaan. dadka sida fiican uga diyaar garoobay waxaa ka mid ah Jabaaniiska oo ah dadka kaliya ilaa hadda lagu dhuftay bombooyinka nuclear-ka. waxay dhistaan nuclear bunker oo ah guryo dhulka hoostiisa ku yaala, kuwaasoo ay ku diyaarsan yihiin wixii dhowr sano la cuni lahaa, daawooyin iyo hawo intaba. kaligoodna ma ahee wadamo badan ayaa sidan yeelay iyagoo dhistay guryaha looga badbaado shucaaca nuclear-ka. badanaa madaxtooyooyinka hoostoodana waaba u aasaasa si ay haddii la isgalo madaxda ugu dhuntaan. bunkerku waa guri ugu yaraan dhowr iyo 10 mitir dhulka hoos ugu jira, leh albaabo adag oo uusan shucaacu soo mari karin, gudihiisana ay ku diyaarsan yihiin wixii lagu noolaan lahaa. waxaa iina jira ganacsato dhanka real estate-ka ah oo dhisa diyaariyana dhismayaasha noocan ah
si haddii nuclear la isku weeraro ay lacag badan uga kireeyaan inta ladan ee iska bixin karta. dhanka wax dhoofinta iyo gaadiidka markii la eego waxaa adkaan doonta in waddan kale wax u dhoofiyo amni xumada dariiqa ka jirta awgeed iyo cunaqabataynaha la isa saari doonaba. gaar ahaan cuntada ayaa noqon doonta shayga ugu qaalisan ee la heli karo, in la dhoofiyaana uu waddan walba mamnuuc ka dhigi doono, kaydna uu ka dhigan doono si uu ugu badbaadiyo dadkiisa, maadaama uu qiiqa nuclearku qarin doono qorraxda, wax soo saarkii beeruhuna uu suququl noqon doono. innaga maxaa inala gudboon marka? sideedaba bambooyinkan waa wax bani aadam gacantiis ku jira oo mar walba la isticmaali karo. haddii aan berri ku soo toosno iyadoo la isticmaalay xaaladuna ay ka duwan tahay sidii ay shalay ahayd, maxaa xal inoo ah? haddii aynu sidan sii ahaano xal ma keeni karno xilligaas. xalku maanta ayuu fudud yahay, waana in aan isku dayno inaan wax beeranno, in dhaqaalaha aynu hubgelinayno u weecino dhanka wax soo saarka. maanta gaariga cabdi bilaha ah iyo cagafta beeruhu waa isku lacag. magaalo dhanna 10 cagaf ayaa cuntadeeda soo saari karta. haddaan dhihi lahayn cagafyo ma awoodnana runteen maaha. waxaan u baahannahay inaan tamarteenna u weecino shayga waxayna taraya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.